waxay u baahan tahay nin kastoo dhintay in booskiisa la buuxiyo. arrintaasi waa muhiim. dagaalka daacad ha laga noqdo. qurbo joogtana sidii lagu yaqaanay waa inay isgarab taagaan ciidanka iyo dowladda naf iyo maal. qodobka intaasan ka odhanaya. qodobka labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo shir baa wuxuu kusoo dhammaaday Hargeysa. shirkaa waxaa ku kulmay tiimkii Ciro ee cusbaa, tiim uu u bixiyey golaha nabadda iyo nimankii odayaasha ahaa ee dhaqanka sheegan jiray ee reerka halkaa degan. meeshaas waxaa looga dhawaaqay dagaal, waxaana la isfaray in laga faa'iidaysto fursadda maanta halkaa ka bannaan. ma garanayo anigu fursadda la istusay iyo jaanisada meeshaa ku jira. waxay ila tahay da awalba iyagaa duulaan ahaa waa ay soo duuli doonaan. ujeeddada qodobka aan u soo qaadaya waxa weeyaan attention iyo taxadir in laga yeesho ilaa iyo dhiiggii baa la diyaariyey. warkaasi war aan hubinnay oo aan xaqiijinay weeye. waxaan u malanayaa SSC tamari meel kastaba ha dhigto, laakiin dhulkii waxba kama yaallaan. ninkii jabi jiray uunbaa jabaya. qodobka iigu dambeeya waxaan rabaa su'aalo badan inaan ka jawaabo. niman dhalinyaro ah baa jira oo Facebooka iigu jira oo ku wareersan anigu waxaan wax ku dhiso. ninbaa saaka wax ii soo qoray, ninkan Ciise Maxamuud baan moodi jiray laakiin gadaal buu dhulbaanta ka noqday. aad u mahadsan ninkaas email yaran Ciise Ruushahay. waxa laga yaabaa always inuu igu maleeyay doodahaygii anoo u doodaya Garoowe iyo waxa khaldan iyo Suldaan Siciid Maxamed Garaaso oo profilka ee saarnay. ninka dhalinyarada oo cudur daaraya. waxaan filayaa afkaaraha iyo aragtiyaha wax kuma dhiso, laakiin sawirrada wax ku dhisa. waxa la igu haystaa maxaad juxa ugu dhagan tahay. waxa la igu haystaa kuwa hadda aniga wax ay leeyihiin Xasan Sheekh baad la jirtaa. Puntland waa daday dowladda iyo sharaf deeqda. dunjigeedba Soomaali weyn daraf kastay joogto waa dareen u taalaya ardaa lagu daryeelaa. nin waliba halkuu rabo ka diga kuna dekeeya. danta qaranka shay aan ahayn uma dadaalaan. ha yeeshee gob daacada mar baa loo dhigaa dabin. hadba wiilka ay doorataa maantana ninkay doorataa loogu dowgalay. dibindaabyo shay aan ahayn looma soo dirin. dadka reer Puntland hal baan idin dareensiin. dalkan dowladnimo looma rabo, nabadna loo diid. demjadeed kuwii doortay baa daanadaa dhigay. dabinnada la qoolay iyo xarkaha la isku wada daashay, dagaalada sokeeye iyo xasarad gaaska lagu daadsho dabcigooda weeyo abiid kama badaalaan. waa nimanka la yidhaahdo damjadiide. gabaygaas wuxuu ahaa, anu gabaya mana qoro mana xifdiyo. wuxuu ahaa maalintii uu Xasan Sheekh lahaa 24 saac ay ku burburaysaa. doqonku iyo dilaalka ishelay ee xamar ka doobiyaya hadday dumin karaan maalin qoro uma badaahayn. iyagaa dalkeena iyo dayacay dowladnimadii. iyagaa dariiqii ka lumay oo dayow dhaba. waxaan uga jeedaa Puntlandnimadu anigu maanti la aas-aasayna waan taagnaayo. waxaan rabaa inaan ka jawaabo maxaad juxa ugu dhegan tahay. Puntland maalintii la dhisay, walow aan nin yar ahaa xaadir baan ahaa. waxaan soo raacay niman saraakiil ah oo dhulbahanta ah oo Garoowe ka yimi oo 7 ilaa 8 baa isoo qaaday oo loogu talagalay inay aasaas u noqdaan ciidankii la odhan jiray daraawiishta. ilaahay ha u naxariisto nimanka intooda badan way mootan yihiin. haddaan wax ka magacaabo waxaa ka mid ahaa Nadalo, waxaa ka mid ahaa Quulo Dhega Madoobe, waxaa ka mid ahaa Faarax Sulub, waxaa ka mid ahaa Axmed Raan. raggaas way mootan yihiin. waxaan u malanayaa inuu ka nool yahay ninka la yidhaahdo Dayr. nimankaa rajada ay qabeen iyo hanka ay lahaayeen ma qiyaasi karaysid. wiilashaan raba inaan uga sheekeeyo aan garanayn Puntland ujeeddadii loo aasaasay iyo dadku rajadii ay lahaayeen. nimankaasi rajadoodu waxay ahayd ay ka sheekeynayeen markay isla helaan ciidanka daraawiishta oo ay dhistaan og yihiin iyo Cabdullaahi Yuusuf markaa madaxweyne ah, waxay ka fikirayeen Soomaaliya inay gacan biro ku qaban doonaan. wiilasha aniga ii soo qoraya saaka maxaa Puntland madaxeeda laga siiyaa
SSC baa tahay rajada laga qabay Puntland marka cudud iyo ciidan loo dhiso oo loo mideeyana hankeedu wuxuu ahaa ilaa ay Soomaaliya 27 sano kadib laascaanood in la xoreeyo kun wiil baa u dhintay waxa maanta calmiskeed ka dhacayana waa arkaysaan calmadowna way buuxdaa ceeri gaabana waa la haystaa jariimadii daraad uu dani ku hadlay oo aslam kula hadlayna meelna idinkuma qorna idinku haddaad wax ilowdaan oo dhalinyaro aad tihiin iga barta sida wax loo xasuusto iga barta sida aan jariimooyinka loo ilaawin si loogula xisaabtamo ninkii geystay waxaan la murugaysanahay weli xasan sheekh maalintay ku cazumeen Digaroowe 2021 beerta qiimaha badan ee ismadu dadka geeyaan ay geeyeen u duceeyeen oo dhabarka ka dharbaaxeen harjadii Soomaaliya ee leedkii baxay ay ku dumiyeen u sheegeen inaan ciidan la tartamayn ee isaga ay dhisayaan macdaalika ay dhiseen dalkii gabal baa u dhacay rajadii waad gowracdeen god baad ku xidheen mugdi ah go'aanka shisheeyihii iyo gudnimada doorateen hadday guul idinla tahay hayeeshe waxayse gadaal ka noqon ilaah baa garanaya go'aanka shisheeye iyo gudnimada doorateen hadday guul idinla tahay dhawaan yaan guuxda maqal xasan baa baasaboor noo diiday xasan baa huu xasan iyadoo ilaahay nacay subxaanahu wa tacaala ummadda Soomaaliyeedna nacday baratay oo tijaabisay 4 sano iyaga ayaa Soomaali u keenay maxaa yeelay gobolka Puntland siyaasadda Soomaaliya wax badan buu ka gooyaa ninka ay wataan cid isma hortaagi karto ama dhaqaalaha ku muquuniyeen ama codha ku muquuniyeen waxaan weydiiyay maalinta ma waxa loo daneynayaa Puntland ma waxa loo daneynayaa Soomaali in xasan sheekh la dhiso yaa faa'iido ugu jirtaa baasaboor buu noo diiday lacag buu noo diiday war xasan sheekh shalay buu idinku yiri 24 hour bay ku dumaysaa aniga xasan kii halkaan maalinta iska taagay 21 baan ka taaganahay today maalintii la doortayna horaan idinku sheegay inaan cusbitaal galay ruuga ninka isku dhuftaa isaga u dhutiya su'aal kale 24 sano 27 sano ayaa laga joogan filayaa 1998 labadii ku marka laga soo bilaabo 2025 marna 25 waa 27 sanadood 27 sano ciidan beeleed baa maanta Puntland u baahan tahay ma taqaanaa sababta nin kasta oo meesha yimaada xamar buu ku socdaa that is why bay maanta rag u leeyihiin anagu dagaalkan gelimayno oo dani xamar buu ku socdaa war muxuu uga baahan yahay xamar ninka Puntland degan maxaa ka yaala xamar dalka uu haystay dadka uu haystay maxaa ilaahay u tisi waayay subxaanahu wa tacaala muxuu hoos ugu eegi waayay maxaa ciidan loogu dhisi waayay maxaa buuraha loo aqbalay in la galo kadibna khasaaraha intan laga uga dhasho maxaa loo aqbalay maxaa dawlad loo yahay soo dalka in la ilaaliyo ma aha maxaa dawlad loo sheeganayaa soo dadka in la daryeelo ma aha maxaa dawlad loo yahay yaa mas'uul ka ah wax maanta dhacaya away asaaskii Puntland maxaa loo dhisay Puntland ma is weydiiseen yaa lagu xisaabtamaya